سعوكي عبد النور الشيخ محمد إسحاق محيطون محمد حاج السرات محيطون دلمرة ومركز سيتا جاي لكن ديما حق براود بان نقطة سنة ساد بان نقطة بكس مر بيننا نوع عسكر دمعته بشارة أنا جوها وذا هلاي لبا أبيوس actually مدا أبيوس ها متك كلهارة وحوها وحلا يراهد بولين shaqada waxa ugu hela bullying dadkan hadda ingiriisiga bartay wadankan ila jooga ama Soomaaliya joogto bay ka naga ingiriisi badan bullying waxa waaye qofka oo mar walba la handada la cabsi geliyo mar walba laga carayso mar walba la taba taagnaado that's a bullying illa noloshiisa la nacsiyo gurigana waxa ugu hela wax domestic violence la dhahayo oo shaqaaqada guriga aniga wadankan waxa imid aan nin qaba hal canug ninkaas u soo dhalay labadeedii inana horan ka soo sheekeeyay hooyada ay hayso isla canugii yaraana 1 month uu jiro ayaa uur yeeshay kay canugii oo 4 bilood jirana waa ka soo tagay ana uurkii maya canugii oo 5 bilood jirana ka soo tagay uurkeyguna 4 bilood yaa kii kale inanka uurkiisa leeyahay halkan aan ku dhalay ninkayga intaas u dacwoonayay ay qabay haday jiraan dad barnaamijka gadaal kala qabsaday this story is about me ana igu saabsanta kuma saabsana ninka laakiin aniga dhankaygan ka sheekaynaya walaalkayga saddexda caruur aan u dhalay horta waa tan ku sheego oo anu frinkan dibsanay oo wali dhaqankii Soomaalida ay ugu jiray marka horta waan adkaystay hadda inta saddex ka dhala joogay oo dabeecadaha qalafsan anoo arkay hadana ku joogay laakiin dabeecadihii qalafsanaa waxba soo dhex galo oo in Yurub loo soo hayaamo ayaa soo dhex gashay isna inuu iska soo dhoofo waa rabana ninkayguna ii yimaado waa rabay halkan markaan iman qof waxaan ahaa BBC soo qaato qof cid la taagan ma ahayn dad kula talinaya jira marka BBC dhaxeeda oo family-ga guriyaha sida loo kiraysto ku sheegay dadkaas oo dhan waxay ii sheegayaan wadankan qof ilmo haysto oo noo kaligiis noolaadana adag tahay runtoodayna ahayd wadanka marka imaano Soomaalida oo dhan say sameeyaan lacagaha waxaan ku xisaabinaa annaga dollar inta pound-ka intaan dollar u bedelnaa dollarka Soomaali u bedelnaa wixii la weynaadaan laakiin waxa aad qaadanayso marka halkan ku isticmaalayso wax ay yihiin ma laha nolosha caadiga ay la mid yihiin wadanka markaan imaaday waxay noqotay la yiraahdo inuu horta reer baan hostelka BBC da markaan ka baxay reer bay noqotay in qolka kireysto uur baan leeyahay qof uur leh oo meel ay ku nafista rabto meel dharka kala dhigata rabto reer ma ku dul nool ma la noolaan karto kastoo lacag bixinay waxay noqotay in guri kireysto because odagii ma ii keenay hadana guri kireysan lacagtii waa yartaa bishaaro 24 sanadkeena lagu qaatay anaga markii hore 24 oo baan oo barrier waay marka barrierkaas waxa loo qaybinayaa maxay ahaatonay sanadka inta uu ka kooban yahay 365 hadana waxa loo sii qaybinayaa hadana canshuur laga sii jaraa oo laba tax income tax waxa ku soo gala canshuurtoodii national insurance contribution oo lacagta dadka ay dhaqaata la siiyo sax okay intaas markii lagu kooxay hadana waxa bixinay guriga council tax-kiisi guriga canshuurtiisi dawladda hoose guriga ka xaqaysay mata qashinka ka gurayso jidka maarata bilaa ayaad bixinaysaa waxa aad maraysay wixii dhan baa bixin wixii dhan waaniga council tax iyo wala bixin jira Soomaaliya laakiin anigu waxba bixiyo way ugu cusbayd oo wax wadan shisheeye ku noolaado oo hooyo ii joogno aab ii joogno oo qof ii joogto aanay jirin oo hooyada caruurta iga haysa saddex kale iga haysa kii kale aan dhalay xagee geynaya marka anna waxaan iska ahaa dadka sida sharciga marwaba inay iskaga noolaadaan jeclo sharciga ka baqa احترامنا مرنا دنعنا وكبقى دنعنا واحترامه إلا هذا ساسانا هاي ما جعل الشرع إن قالوا ما جعل إن كرايم إيه مالت الدنبي وحين لا يقول سهله مركا وحين نقطع عرنجيجي إن ضد إيه هاي أجنبية ولا عقبا قادنا هاي مركا وح سهرة يا بسكير مركا وحين نقطع إن أنا كنا ولاده ما ركت تونا إيه باكت بينسي وح معنا لهاي قف أمله عنق الشيء ما فهمت أوكي هذا جي يمد هذا مركو يمد هالكاس لها بعد نفسه يسا دقالة باللود ugu bilaabay because aniga waxaan ahay awrki cidaan ahay awrki reerkaan ahay reerka miyiga degan awrka u dhaantaga wuxuu u sameeyay aniga awrki reerkaan ahay asaguna haduu shaqaysanayo looma diidine sharciga waxa laga soo siiyay aeroportka ka national insurance number waa inaad samaysto markaad sharci helayso shaqo raadsanayso national insurance number ka kolba waxaan u sameeyaa ballan uu ka boodaya ma rabi inuu taga ma rabi shaaninkan qorshe kale u dagsan anu qorshahaas lama ogi kamana midihi okay waxa dhacday markuu yimid hadana inaan uur yeeshay gabadhayda Sulaaqa uurkeedi ilaahay ku caasiimaayo walaalkayga ilmaha iga dhalna ku caasiimaayo like this what happened to me
halkan ka bilaabata marka haddaan imaado shaqada oo aan imaado Bush House booskaygii Bush House oo xilligaas muhiim maaha magaciisa inaan sheego bulin ila fadhiya gurigii haddaan tagana ninkii dhib ila fadhiya laakiin de booska qod kasta og meelo fara badan waa Yusuf kaligayna maaha cid walba Yusuf ka hadashay qof walba buli gareeyay everybody mid dhintay iyo mid noolba wuu buli gareeyay marka taas asaga dhinac baan dhigay buug dhan baa chapter dhan oo buuga aniga noloshayda aan ka qoro ayaa ku saabsan oo la yiraahdo aniga iyo Yusuf chapterkaas waxa la yiraahdaa aniga iyo Yusuf buugayga waxa la yiraahdaa wax kastaba kaligay because waxa maray hagardaamooyin badan oo kaligay inaan la tacaal ninkii markaan keenay oo ila joogo walaalkay magac kale uu yeeshay magac kale isku dhiibay magac kale uu baxsaday aniga wadankan sharciyan ku keena isna wuu isdhiibay ha sharciyan ku keena sharci marka qofka ku keento waa sharciga raaca dan wuxuu noqday nin cusub ana ma oge bas aniga waxaan ahay gabar walacna ah oo ilmo caloosheeda galeen financial difficulties iyo maaliyadii soo galaysay ku maareyn lahaydna ay adag tahay dan waxaan noqotay shaqadii hadday tagtana aan arxan ku haysan arxan waxaan ku haystaa walaalahay ila shaqeeya ma Cabdisalaana ma maxato cawka Allah u naxariistay ma Yunus badana markaas wuxuu jiray Soomaaliland ma aadan nuuxdula ma maxay hato Saciid Cali Musa everybody waa ay arxamaya waa walaalahay waa oo Soomaalinimada ilaalinaya but this guy not dan urkayga soo weydaaday waxaa gaaray 8 bilood gabadhayda salaaqa urkeeda ninkii guriga ii fadhiyo abuse-ka waxaa rabaa gabdhaha Soomaalida u sheeg waa kala duwan yahay abuse-ka waxa waa physical abuse mental abuse emotional abuse and financial abuse afartaas ugu badan spiritual abuse ajirka anaga nama qosay because Soomaali ma guursanayna ningaala ma guursanayno ya spiritual abuse wuxuu imaada marka oo la sameeyo laba qof kala diimo duwan physical abuse waa jug marka geesa maarta daamanka laga jabiyo emotional abuse waa marka lagu caayo financial abuse waa marka lacagta iyo cunada aad guriga soo gashay telefoonka guriga soo gashay telefoonka la qarxiyo oo cunada maxay ahayd toona la misuse garay oo wax walba lagu dheelo emotional abuse al dhaha waxa la dhahaa financial abuse maxay mental abuse na waa waxa weeye marka mar walba mentality-gaaga wax adiga ku dhibaaya marka lagu dhaho like maxay ahayd saana tahay oo kulligeed wax foolxun intaas guriga iyaga socotay maalintii dambe waa baxay 8 bilood ah wiilasha ila shaqeeya hadday maanta kuwa nool dhagaysanayaan barnaamijkayga way ogyihiin wayna xasuusan doonaan way fasaxayaan kan sumeelahan oo meesha madaxda ka ah BBC waxay qabtaa sharci policy la dhahaa flexible working ilaa hadda waa jira sharcigaas qaasatan markaas waxaa talinaysay xisbiga Labour-ka wuxuu aad xil u siin jiray familieska flexible working that means waxa waa gabadha shaqaalaha ah oo UK ka shaqeyso in ay shaqeyso xilliga ay iyada shaqada ku faraxsan tahay that's what means flexible working marka flexible working asaga aniga flexible working oo aan aniga sameyn karo waxa waa in gelinka hor la igu qoro shaqada laakiin gelinka dambe la iga daayo sax but this guy oo BBC xukuumaya waxa ka ahaa wuxuu igu qasbayaa inaan gelinka dambe ugu qoraya shaqada soo gala waay isagu wuxuu eegaya xilliga adiga ku dhibaya because jadwalka shaqada asaa qoraay Soomaa haduuna isagu qorno secretariat qortana asaa amraay soo marka maxaa dhacaya aniga foldin ahay lugaha ka barbarsan ka waxaysan wiilasha kale waxay dhahayaan aadan nuuxdule iyo cawke iyo Cabdisalaam iyo Aamin Abaay adoo sidan ah anagu reeraan leenahay ma aragtay ma ku fiirsan karno anaga shaqada ka qabanayna bax bishaar ma baxay because daan baxo abuse kale aan aad guriga igu sugaayo ma bixi kari I just cannot go home da waxa jooga toiletka waxa jooga toiletka galab isku suuliga galab muraayada isku eega muraayada la hadla that's where it come from saaxiibta muraayad
it was me the one who was talking to the mirror qofka la hadlayo muraayad is me it's wixii igu dhacay waay wixii aniga soo gaara waay wiilasha baxay ay dhaheen ani ma baxay because daan bax oo guriga waqti hore tago dhibaatada baa guriga meesha ka bilaabana ilmahayga yaryar maxay ahaato maalin waxaa lagu soo abaabay ilmaha laguma dul ooyo ilmaha haddaa koo dul ooyso dhaqankii aa igu jiro wadankay ilmaha kuguma dul ooyo ilmaha haddaa ku dul ooyso maxita ilmaha waa kaa dhimanaya ama jiisi wala xilkaa noqonaa ilmihii maraba inaa ku dul ooyo and then I have to cry I need some space to cry meelaa ku ooya u baahanayso mas-uuliga saaxiib la noqda marka qof oo soo arko gabar markaa raadkeeda soo maqo waxaa ku ortaa campingaa fadhiisanaa waa isqarina neefta isku celina marka gabadhaas baxay muraayadaan la hadlaa because I'm alone ninka guriga waa joogaa kadar cid la dareemaso waxaa u baahanaa marka qof aan la hadla aniga marka muraayada isku fiirinayo qofkii kaleeta waxaan u qof kaleeto inuu qof kaleeto ada marka dambe I gave up hada ruux baabilo on that time depression ay ugu dhacay aniga weligay life kama sheegan xaamila ah uura laha full time shaqaa laga rabaa 9 o'clock waa inaan bushaas joogo sharci baan qabo haddaa shaqada joojiyo I have to go back wadankii burbursanaa because sharcigii ma buuxinin waa inaa buuxiso 4 sano inaa shaqaysid waa markaa fiis shaqo ku timaado kabacdi aa qaadanay deganaasho qaxootimihii ani ma lay magan gelinin dadka qaxootiga waa dadka la magan geliyay oo wax kasta la siinayo guri la siinayo cunto la siinayo everything la siinayo I can't hooyada iyo ilmahayga aan kasoo tegay iyo inaan u daraan rabaa haddaan baxo waxaas oo dhan ma imaanayo soomaalida arka waxay dhahay maa shaqada iska joojisid maa markale farmaa lagaa soo qaada maya maa isdhiibtid how haddaa isdhiiba aniga kow kasoo bilaaba sharaftii iyo sumcaddii iyo wixii ani intaas aan ilaa iyo xanaano caruur aabahe igeey ugu dadaala aabahe wuxuu igeey anoo shaqada ugu sarreysa haysta inaan iska baxo ma igeey nan abaayo waa xanuunsada depression ay ugu dhacay anu maan fahamsanayn xilligaas gabdhaha i dhegaysanaya dadkii dhegaysanayana inay ila ogaadaanaan rabaa mental health immunity ma jiro jir difaac male mental health markuu kugu dhacaa waa kugu dhacaa xaaladaana keenayso iskagama kaa dhacaayo depressionka markuu igu dhacay dan waxaan jeclaystay inaan nafta iska jaro I want to commit suicide 8 months uur 8 bilood aan leynaa isdilaa rabaa nolosha dhan aan nacay ma lahayd marka cid kugu dhow oo saaxiibada ama ehelada ood aaminsanayd ood u sheegaysay dhibaatada guriga ka haysatay friends ma qabo gabdho Soomaaliya ii dhow waanad aamini karay ma gabdho Soomaaliya ii dhow ayagana marka hore waan ka ilaalinay dhibaatadeyda because abaa anay dhaqanka waxaan ahaa gabar dhaqanka ku dhagan reerkaaga wixii ka jiro banaanka ma loo sheego hadda waxa iska dhaafay television-ka sheegoya I don't care wixii la sheegayo wixii la sheegayn bas ma raba inay aniga ugu jiraan 24 hours ma raba okay maalintii aan rabay inaan isdilo marka maxay sameeyay temple meel la dhahayaa jirto laba station Holborn iyo temple bushaas u dhawa Holborn marka meel la iska tuuro ma laakiin temple jidka hadaa goyso river Thames ku yaal wabiga Thames dabaalna ma aqaano ani I wanted to waa ogahay inaan dhimanayo biyaha isku tuuro way dabaaladka ka baxsan ma badliida ماشي دربي استاج انا استورا ربع لكن على شيء سائد ودر ساعه دان دو على شيء حنون اسم سو قد كري قابك اسكو توري الحياه كفكره مرك بطل وا اي كدمات انا استورا ربع I want to die ولقي اسم لهين انا استشوك فكرته مرحلة سداري دونتا حنون كان كينا إنا حنون سنة المؤكي وقت ما له دتك BBC كشقي كل جود وأقول تايم ما له وفسح سندات كانت قاعدة نسا فسح سندات كانت قاعدة نسا بس بركي الصومالي وفسح سندات هدان قاعد تحت شد حدان عنق إنن كان إسكا قام تيجي كرو قبل أجر تحتها برروها مركز أنكينا أجوكت إلا بدأ سقونا لي كي كلنا على شاكوستا
haddaan tagaayana baasaboor ku baxo ma qabo because I am not British maahane xataa residency indefinite leave to remain xataa ma haysto baasaboorkayga Soomaaliga wadanka ma laga aqoonsano wadankayga 4 sac waa iscunayaan meeshaad joogtid ay dhibaatada no rajo amina meeshaad joogtid BBC-da dhibaatada ugu badan kaaga socoto Yusuf Garaad ma aaminsan tahay inuu adiga shakhsiyan si gaar ah ku beegsanayay mise inta la kulmayba wariyaasha ka soo shaqeeyay BBC-da dhibaatada inta ugu badan ka sheeganayso la mid ka sheeganayay horta aniga dabeecadeyda dadka si gaar adiga lagu beegsanayo aaminsan tahay maya dadka ma ahay horta dabeecadeyda laakiin aniga sida aan u maleynayo waxa waaye qofka markuu asaga le isma hadiyo Yusuf ani muu maleynayo xumaana uu dhashay inay tahay waxaan u maleynaa dadka qurbaha ku xumaaday inuu yahay ay kasadaan ma wallahi waxa ahsan u sameynay laakiin ama aan uga weerweernaay but that time he was very bad he was really very bad waxa kaaga daran aniga gabar ahay halka gabar oo markaas joogta gabdhaha gabar kale joogto Yaasmin la dhahay gabar kale Kaatil dhahay gadaalka imaad waxa soo dhan iska dhahay qofka full producer ka ah ee joogta gabdhihii hore kalena waa bixin Jawaahir Suleymaan Shamsabo kullu waa bixin qofka oo joogtay oo halka gabar oo codkeeda aad loo maqlay ta iigu darneed waxay ahayd libaaxa ah marka dadka banaanka iga maqlay because they don't know ida kamid waa dhageysanaysan ma ogidin waxaan ku suganahay ana kamid ah dadkii ku dhageysanay aniga dhexda ka dhimanay because abuse kugu socdo ee bullying kugu socdo qofka waa in qofka fiir qofka marka shaqada laga buluusay oo gurigiisa degan yahay qofka waa noolaa karaa gurigiisa degan laakiin labadiiba laakiin marka gurigana laga haysto balaay ka haysto shaqadana balaay ka haysto meel aan ku survive garoobaysa malay ma fahamtay ewerka horna uma dhalan meelaha warwareego qof wuxuu dhalatay moogtahay qofka uma dhalan anaga dadkan meeqsana igu dambeys intaas soo ma aan arkay xumaaga ma maqnay laakiin ma arkin ba okay amino adan ka dhex galo BBC-da waxaan xasuustaa dad badan oo dadkaad isla soo shaqayseena inaan waqtiyo badan aan sheekaysanay oo ka maqlay way ogaayeen dhibaatada ana u sheegay dhibaatadaas hatta ku ajnabiga ogaay aniga abuse kala lagu hayo shaqada dhibaatadaas dhaw ogaay taas ku weydiinaya waxa weeyaan intooda badani deegaamada yaabana oran intooda badan dawaanay ahaydba Somaliland iyo waqooyigan dhahnay bay ka soo jeedeen iyagu waxay iiga sheekayn jireen inay aaminsanayeen inuu Yusuf Garaad hab marka hayb sooc oo kale ama kala qaybin oo kale uu iyaga si gaar ah u cadaadin jiray u beegsan jiray adiga hadaba aamina ahaan hadaad Yusuf Garaad sida dadka la isugu tiriyo magaalo ka wada timaadeen oo waliba iskuna dhowdihiin ba toos u nidaahnaba ma u malaynaysaa taas inay waxna ka badbaadisay ama aad wax at least dadkan wax dheeraydood wuxuu ku dhaantay oo adiga ku naxariisan jiray ido hadalka xumeys iyo maarata ugu roonowba aan ahayn magaala iskala imaateen le ma noqonayso marmarsiyo excuse ma noqonayso Yusuf Garaad muu malaynaa waxa markuu dhashay inuu beledweyne meelaas ku dhashay marka hata ka dhigba inuu ku dhashay laakiin kuwa waqooyi hadii waa arkeen in la haybsoo ay gaar aan asaga isku malayn walaalkiisa aqina asaga ka yar soo waa naga weyna hortaan iskuul ka baxay oo mid kale qof khas dabeecada jirto qofka kala ku darto Yusuf dadka baxa oo baararka la farfariisto oo raaca anay ma ahayn ani waxaan ahaa gabar marwa oo la qaba marna waxaan ahaa single mom garooba oo ilmaheedii qofkii lacagta ugu haysay rabto inay tiigsato oo ilmaheeda ka soo kaxaysato I don't have time ma haynin aniga Yusuf ku raaco restaurantada kula fariisto Yusuf wuxuu ilaalinayay dadka asaga ka daba dudukada aniga waxaan ilaalinayay shaqadayda أنا وحنا إلى لنا إنه باص إيه 8 hours كBBC وشقينا بس سدرنت أنا تاسواي waxa aniga aan ka soo jiito asaga u raaco meel cabitaan kala soo cabo baararkeena night club-yada wuxuu aad jiray u jeclaa u raaco aniga ma ku jirin I never been night club I was fanaanada ah laakiin never been night club waliga ma tagin aniga night club so aniga marka saaxiibtinimo kale aniga isaga igala dhaxaysa laakiin suuqan ku dhameey aniga u malaynaayo waay aniga la buugan ka qoray arintayda u malaynaayo waxa waay Yusuf dabeecada oo dadka dhan ku abuse gareynaa aniga ugu abuse gareynaa laakiin aniga degree fara badan aan dheera koo gabar aha laba waan ka nuglaa saddex wiilasha ila shaqeeya waxay ahaayeen dad asaga shaqada kaga soo horeeyay laakiin aniga waxaan ahaa asaga shaqada kaga dambeeyay Soomaali badan maadaama barnaamijku Real Life Soomaali badan ay aaminsan hawiya la soo qoray Yusuf Garaad iyo hawiyiisa anu ma aqoon waliba markuu uu bahalka dhiganay ma garan iska dhaaf asaga qabiilkiisa aniga qabiilkayga ma garanay mana aqoon gaar ah ma lahayn Yusuf aniga ma fahamtay
aqoon gaar ah uma aanan lahayn saas la ashrigeed waxyaabaha quruufaadka ah oo meelaha la wareejinayo ma jirin waxaan calafaa ii galay waa niga idinkaga soo sheekaysaa ku hela calafkaasaan ilaahayaan uga abalhayaa ma fahamtay tuu imarsiiyey markii aan fiiriyo iyo wixii maaragtay wanaagahay isagu uu doonayo in xataa somehow xataa hadduu doonayo somehow in wanaag loo haayo tuu imarsiyaa ka daran he abused me he bullied me aniga wuu i buli gareeyay Yusuf si cadow ii buli gareeyay so television ma so wadan British ma joogno oo maxkamad waxaaga ka furanta dadka dhaxay kale ma dacwayso it's not that easy because wuxuu ku buli gareynay waxay ahayd powerka BBC da ay siisay hadda waa kaas waxa ay yiraahdo hadda bal waa kaas waxa ay dhaho oo ragga kale oo jooga oo nafta u keenay Cabdisalaam Hareeriye waxa dhaho ta ana waliga ilaaban waxa markii Oxford University nalaga casuumay oo Cabdisalaam Hareeri ninka la yiraaho maxaa la dhahaa wasiirka markii dambe noqon jiray Cabdiraxmaan Caynte dad fara badan Mary Harper gabadhan mar walba Soomaaliland tagto buuga Soomaaliya ka qortay kulina macsuum aniga waa la xushay waxa ay xushay xafiiska Ingiriiska oo markaas Soomaaliya inuu u qaabiyo markaas xafiiska la sameeyay ya UK oo xafiiska UK ka furo oo Soomaalida arrimaheeda qaabilsan markaas la furay dadkii laga la tashanayay ku jiray waa la casuum because waxa la casuum jaba ay maqleen dadkan waa ka dhaga dheer yihiin dad aan casuumaad gaar ah la isoo diray wuxuu isku dayay inuu yimaado casuumaad waxa lagu yiri ninka dhan la rabo inuu ogaado waxa la ogaanay how media kaga qayb qaata sidee media kaga qayb qaata dib u dhiska dalka iyo burburinta صح صح ayuu ku saabsanaa workshop kaas Oxford University lagu qabta inta soo maalmoodaan jirna waa ninkii inta telefoon markuu asagu meel ka soo galay waa wiil kale walaalkiisa oo iska wariyaa Ilyas la dhahayaa imaaday aan wax xumaan hadda oo wiilkaas oo ugu sameeyay ma jirto laakiin Yusuf markii inta isoo wuxuu BBC afkaada kuma hadli karto BBC halkan ma uu joogan ku aniga anu halkan BBC ma uu joogaba myself aniga personally la casuumay hada ay weydiiyaan sida meesha looga dhaqmana dawaa sheegaya marka soo noqdo waxa uu diray wax la dhahayo qofkan macnaha shaqada ku xad gudubta amal markii aan gudiga u tagana wixii waa socon waayeen waa fikray markii ma taqaana how many times aan qoro warqadeedii casilada oo aan gudbin aadan nuux dhul ilaaha qarso twice asaaga cili aadan ilaahay qeyr samaanta waa nool nin xataa qabri ku jira marqaato ma soo qabsanayo asaaga cili waana haya warqadii koobigood oo dhan and I will print it out on my book no ku daabaca wuxuu weer aamino ninkan BBC ma leh asaga ma laha adiga gabar shaqaysata xaaladaha aad ku jirto aad ku raato single mom inaad tahay waxa aan ognahay ninkan dartii shaqada hooga tagay shaqada hadii laga tagaayo ama waa laga wada tagaa shaqaadna ka tagay ama asaa kaligiis tagay markii dambe dhacday adiga wada dareerteen somehow ilaahay iridu furi doona abay laakiin aniga ma joogi karin ma adkaysan karin ma karatay aminoy waxaan ka maqlay qaar kamid ah wariyaashaad isla soo shaqayseen aad baan uga xumahay intaas oo dhan aan kugu celiyo arintan waxaan ka maqlay in adigood Luton degan oo aad uga fog BBC-da inuu maalmahan tareen ku shaqeynay sida Sabtidii iyo Axadda uu kugu khasbi jiray shaqada kugu qori jiray iyadoo Ilaahay naxariisto uu ka yaagtan deganaayeen dad fara badan ay u dhawaayeen oo waliba ragihii uu adiga ku dooran jiray si uu kugu ciqaabad Luton uga timaado horta wax yar waxa waa Luton waxa u dagay waxay ahayd aniga markii aniga aan ninkii kala tagnay horta waxaan gabadha 27 jeer 27 jeer maxkamadda Ingiriiska la geeyay iyadoo ninkeedu dacweynaa ah aniga ninkina ma iqabin waa ifuray uu dacweynaa because markuu dacweynayo he has another name another wuxuu magac kale blade of birth kale waxa kale inaana aniga shaqaysan nolosha ciriir iga dhigo ilmihiisna aniga korinayo ma fahmid ani struggle badan soo maray magaceeda waan ku talagalay maanta inaan sheego struggle ka soo maray wax la qarinayna ma ya okay xumaan uma qabo na Yusuf aan xumaan u qabin kanaan xumaan u qabo but my life markay tahay qasab waay my life illa sheegay in la qoro ee kayd noqoto lagu waana qaato gabar kasto aniga iga dambaysa oo sideedoo kale ta mudan doonta waa hubaa inay mudanayaan waa hubaa kumaan kun inay haddana mudan doonaan ma garat 27 jeer aniga defendant af Ingiriis waxa lagu dhahaa maxkamadda markii lagu qofka dacwada loo haysto oo isdifaacay qareen ma awoodo because ilmihii aan dhalay aan ka bixinaya kiro aan ka bixinaya naagta gabadha ii heynaysa lacagteeda aan ka bixinaya waxba aniga xataa dhar fiican ma gada karo by that time ya markaas waxa lagu dhahaa
mushaarkaa kor lee la fiirina legal aidna xaq ma u lahayd legal aid xaq ma u lahayd maxkamadda markaa kugu saaraya qadar kale isaara waxay tahay maxkamadda sharafteeda ingiriiska maxkamadihiisa sharafteeda haddaad ilaalin dambi aadan lahayn xataa waa lagu qaadaa inaad dhar suud madow gashato ood isdifaacdo ingiriiska afarta ingiriisan aqeenina isku difaacay noqotaa because qareen ma yeela weliga qareen ma yeela maya aamino saashid waxay tahay isagu muxuu maxkamadda 27 sababta maxkamadda waxaa waaye ilmahayga ima tusto ninkii ay dhahaayo adu markaa mid u diidaa goormuu rabaa inuu ark laba maalmood wiigi maalintee sabdee axad ha u yimaado ma imaanayo ilma ma rabiyo anaga waa law rabaa believe me maaha ilma maaha laba bere markuu u yimaado asaa maqnaaha waaba maqnaaha maxkamadda maxaa ku qoran maxkamadda kood oo dhan ay soo saareen maxkamadda amar maxkamadda soo saar waxaa ku qoran haddii labadiina mid kamida uu jabiyo go-aankan waa inay halkaas ku istaagtaa oo maxkamadda la soo noqdaa sababta 27 jeer maxkamad la taaga waxa waa laba bere markuu ilmaha wadwado oo maqnaana ma rabiyo wuxuu rabaa inuu guriga soo galo oo sida berigii oo aamino qabo kale tashaah cabo oo lugaha kala fidsado oo musqusha iska galo oo iska soo baabaashaan oo xagga ku dukaanay adaga ajnabiyan kala hawad ajnabiyan kala naani adaga isku hormar marqayna dhaqan diinna maaha dhaqan Soomaaliyeedna maaha isku hormar marqayman abay caruurta say waa raayaan adaga saata xataa haydiinaan ma bii qabtidba caruurta say waa fiican yihiin haddii aniga aan nafteeda u yaabo oo arka inay sakaraad ahaan dhimar raga badan anaaba dardaarmayo dhahay ninkaasaa dhalo meeshaas degan hala siiya ilmaha ya laakiin ay hormar marqaysa ma ah waka 27 jeer maxkamad ingiriis liigay anigu qofkii wadankan wax keena ah sharci buuxa leh anigu lay magan gelin asaga because magac markuu isku dhiibay qaxooto iska dhigay oo tax payer oo canshuur bixinay aan 27 jeer aqbalay si aniga Soomaalnimo u ilaaliyo anigu waa dacway kare waa dhihi kare this guy wadankan waa keenay magacaas I will never ever say ma dhihin aniga adise ku garaweysa marka adoo anigina iga dhalin badan tahay ma aan ahayn ku garaweysa maxaa aniga inta tura maaha ninka hadduu kugu xumaado waa kugu xumaaday labadiina la isku makiin turin abay hooyadan ma dhal Soomaali Maxamed isku tiin Soomaali Samatra Soomaali Farax whatever you are but laakiin waxa ixtiraama waxa waa marka Nasri Salman iyo Sulaaqa bari ay weynaadaan sida hadeer oo kaleeto ya habartayna adoogan xirtay ma la dhahayo absolutely I don't want that because hooyaday aabay si kasta isu khilaafa abartay adoogay ma xirin maxkamadda qoyska aan jirto ya sharkeyga noo cadaada rabaa maxkamadii aakhirkii maxay ku soo gabagabowday ma sababtaad markaa ugu maxkamadda waxay soo gabagabowda markii la arka mar walba inuu igeynayo oo ilmi ma tusta leeyahay ay waxay leeyahay in la yiri gabadha la xaal hadda kadib maxkamadda ma keeninba ha imaanin maxkamadda gabadha la xaal waxba xukuumad diidan gabadha ilmaha waa ku tusay أنا محن سمي مال واحد جت guardianship لا ده أو المها اللي هاي أنا بس أنا نينك الشغل إذا واوشة حتى abuse كنينك شقة وهاي واوشة وحال ولا على وأنا قال لبدين نينك سو شقة أم بو ما تحكي على إيه حاجة أدو هي abuse أدو هي يقدر إن كي كلام ماشي يفديه لا بقى بس أنا قال مدنا شقة يفدي مدنا حاجة ما بنا ولا أنا إيه ومغلي واي حكوا إني مركا أدوك الشغل هذا دي احترام لهين وده حريص لهين ما أنت أنا قام محيطون كام فوق أنا محسمي أنا محسمي سنة دبرشة دم بيجوا دعين سنة ريفر تيمس دم بيجوا بدم بيسكتورة ويجوا صدعين سنة بناية يجوا صدعين وحسمي إن أنا أرك أنت المهيج كراين إن أنا نكاس إنده كقرية وأماش عرور طلعوا هاي وجاية المها 2 hours لعقت هذا قيبت إذا لبحه أسا هدي وحلقة قاعدة ما أنت على social service جايز كاس فديسا بالدر المية سلفيرة هذا ريفيوجي وحي اللي قرأ محكمة اللي قعدناه محكمة دوا آخرنا وحي أركه واحد نبعته أو ماشي أنكجرب إنه نجرب محكمة هان أباي قفكم مركو أسوق كدعوي أو legal aid إقرام فري هاي dadka canshuurta bixi lacagtooda waay waxa lagu arkaa inaad public fund-kii dadkan wadooyinka loogu dhisi lahaa waxbarashada loogu kaalmeyn lahaa inaad wasti garaynayso oo qasaaranaysa lagu arkaa mala ogola marka dambe waxay noqotay gabadha la xal ila yaraa gabadha la xal ma meesha aan ku arkay abo maya gurigaan ku arki maysid baraf hadawda ay xataa inta ku arkay waxa gooy guriga ugu arkay gurigaan aad degan aniga isma qabno marka inta xumaan imaan lahayd magaceedii ilmahaaga intay yaryar yihiin adigana maarata emotional aad tahay oo wax kasta aad gocanayso isbata inaad aragba
كهبرتها ما أدوغانا ما المقصود عشان وحماض حريرك سماها كمنا احترام وضع الشيء جو تحقق حول هذا استفاع اسمك كما حاول إنا أفويد قريسو إنا أرك تأثر المها لك حق إليه المها يقول كوكران ويأركايان أبهات halkaas ugu geynay marmar guriga ugu iimaanay waday marmar guriga ugu iimaanay oo fadhigo la fariisanay anigana qolkeyga aan ku xabisanahay bas ninkan aniga ajnabi aan kalana aragtida inta soo dhan wad dibsanaysa waatay hadan markaan dib ugu noqdo maxaa waxaan la isweydiinayaa okay suicide-ki iyo reverse teams ba taagnay Soomaaliya maxaa ka istaajiyay oo farajkii Ilaahay ku soo diray ka joojiyeen ishaligtood dhibaataysan maxaa wax badan abaayo horta nolosha adiga ku soo marta marka nolosha adiga wixii ku soo maro wixii aad ka ku soo maro of course waad go'anaysaa waad ooyaysaa hadda sameeyo kale laakiin waxa rabaa in adiga wax barasho ku noqdaan ina adiga ku aarsato inaad adigu maaratay ku dagaal tagto dambe lama rabo ani dhibkii waa ka baxay hadda dhibkii aniga waa ka baxay يوسف قرادني ما أبيوساي أو ما أمين وحشاقية هبين كيس لحلقي ماشي أتاقني محاك ممكن اللي فينا تشوشي سوقو آنكي هاي ندو حسيا شو أو شغلة دقيقة داد ماشي أتاقني داد سلهايدي ستيل مركز سلهايدي ستيل دقيقة داد ماشي أتاقني أو بيقى تاقني محاك بدلي كاتشوشي وحاي بدلي هرتو إلهي سبحانه وتعالى وحايدنا أدونك أنت سواك قندون طادحي أدونك وحايدنا نربا إيدنا أدونك أنا مركز أوريري oo aan halka taagnaa oo aan rabay inaan boodo waxa horta idaahay qaabka u booday because calooshayda aad ay u wantaan qof culus ahay sahalku ma kori karo maasha but I wanted to jump whatever happened say danta ba ahaatee waxa ay joojisay gabar markii dambe ay sheegtay inay Jarmal tahay oo dalxiis af Ingiriisi gaja taqaano ayaa waxay ii weydiisay halka uu ku yaalo tiyaatar Hebelow tiyaatar adiga bushaas ka soo horjeeday attention kayga soo jeedisay marka halkii aniga aan ku talamayay see u boodaa attention kayga soo jeedisay gabadhii way ogaatay inaan ooyay aragtay waxay weydiinaysaa waa iska dhaafta garabka iga qabatay qofka yaqaanay meesha waxa ku yaala meel oo dalxiisku marmaraan waa kuraas la fariisto oo webiga lagu sii jasto qofku oo webiga iyo doomaha iyo daawan kara ku yaala kuraastii fariisay kabad waxay ku tiri do you want tea waxaan ku dhahay bahay blood pressure aan qabaa tea ma cabi karo iyo coffee laakiin دكافة دويها ملها بس كعبي كرام من كافيه نيرا كويلي استيشن كتمبل جيسكيس عن تجني وإفني شيء عبي تانكي إيه قضي دنا وحي قلت لي don't do something stupid إن واي هاي أنا كنا برتاس مالا كنت كان كرام على لكن برتاس وحن بلا استغفر الله إلى وعف لك وأنتوا واسعته وأنتوا واسع بدنا because ما هكذا إن إنسان كأي بوددي لكن واحد دراسات كأي صرفت أنا أقول فكرة إن أسدله أنا قف مسلمة دن إنه لشيء دين أنت بصح حسست يران تيجي هو يدي أبيه ولا عليه بحد الناس سهر مرمران ده تنا أن قاطع إن أن جارو أن سو جاري أمريكا قولك هذا تقول أنا كمان نسنكر أنا ما جاري كرو وهوستي كان على شغل راسك صار بحي كان محين نقطي waxay noqotay inaan black cap ka waa lacag badan yahay idinka baa ogtiin inaan black cap karaysto oo waxaan deganahay Faynus daris camal ahayn markaas waxaan deganahay Eastham aan deganahay meesha koow Faynus ku arkay wadanka ka bacdi inaan black cap karaysto intaan black cap ku jiro waa ooyay maanta ninka wuxuu la biyo ma ku siyaa maya xanja ma ku siyaa maya aan biyo xanja ma raba inaan go'aan gaar raba intaas between meesha aan baa ka raacay ilaa iyo gabadha kafeega gadaysa iyo wacday iyo waciriye ilaa iyo ma Eastham oo fogaan dheer oo tarankuba u soconaya saacad ma aragtay wax la jira inta sii socda go'aan waxaan gaaray in student aniga isdiri lahaa labadan nin ina ayaga ka takhaluso kees halan marka kan shaqada BBC oo dhiibta aniga ma ka takhalusi karo لكن كان راك واقع تخلص كراه كان واحد جورا اسكو كان هاي جور كتودا ما مش تقول ما هذا وسواء مركان إمدنا وحي أورنج مركو يروح نكوري سد سهرة ما سدي هرماها صفرمنا وأنا أفكار لبلي راسارة سائل ما هاد لستانيكا إسلام مركينا وحان وعي يلو بيج كا وحان كا وعي لوك سميث
qolka fadhiga ayaan u samaystay qunful si aan qayladiisa barrigiisa uga badbaado markaa musqul hoosaa ku taala guriga laba musqul uu leeyahay guriga qaybta kore ka degan baan ku yiraahdo qaybta hoosan ka deganaana halkaas bay iga bilaabatay markii inaan xanuunsanahay inaan ma xanuunsanahay xataa ma oga laakiin aan takhtarka u tago inaan wax u sheego dadkii horta Soomaalida markaa u sheego waxa lagu takhtar isku tagin takhtar hada isku tagto oo la ogaado waxaan ku hayaa u sheeshato gaalada ba imaanaysa ilmaha laga guranaya horta markii dambe go'aanka waa gaaray inaan takhtarka u tago laakiin goorma u tagay wali ana xanuunsan gabadhii dhalay waxa u tago markaan dhalay kadib waa la ibaaray waxa la ogaaday depression inaan qabo dawo inaan u baahanahay in la isiyo anugtina naaska nuujinaya la ana anugta naaska nuujinaya aan daawo qaada karin da psychologist la diray anu luqad waa aqeen oo qofka tarjumaad ma u baahnayn sirtayda xogtaysa isku ilaashan tahay marka inkastoo qofka tarjumaada xataa haduu Soomaali aanu sirka bixin kareen oo isma garanaysan ma fahamtay dadkuna may garanaynin halkan waa BBC lana maxay too ka dhageystaa hirka gaagaaban wajigaaga qof ma arkin I don't know waxaan ku suganahay aniga ma garatay marka waxay noqotay in la yiraahdo gabadhina nuujinaysa mise waad ku faraxsantahay inaad iska goyso maxay aniga gabadhan ina nuujiyo gabadheedu waa qof shaqaalaha ka maqanaan hadii aniga aan xanuunsanahay oo aanayda iska siina okay kaniini la ii qoray oo aad u milligramkiisa yar yahay dan waxaan bilaabay inaan caafimaado oo dawadii qaadat inaan caafimaadaan bilaabay marka waxa adiga ayaa go'aan ma gaari kartid depression marka qabta astaamiis waxa kamid qof go'aan ma gaari karo qofku maanta dhan isku yaaca maanta dhan waa ooynay maanta tiir fuulan go'aan ma gaaraysid go'aan ma gaari kartid go'aanka kaliya gaarayso waxa inaad isdisho marka rabto taasa adiga gaarsiisay mana isdirin alxamdulillah Allah ma iga soo badbaadiyay waa inaan marka aniga maaragtay noloshayda maaray maalintaas noloshayda majaraha u qabtay magaceeda maalintaas ayaa gabadha umusheedii markii aan ka baxay oo aan dhalay aabo intaan la hadlay aabo markaas Allah u naxariisto noola America u socdo laakiin wuxuu joogaa Nairobi aabo wuxuu ugu ramanday diinta islaamka ma ogolo gabadha oo maaragtay nifaasku ka socdo in la furo waa in sugta intaad ka daahirsato waan sugay aabo wacay waa la iga furay هذا لقى بالله وقبضان وكافرنته أصلا تذكر حقوق الشاكية أنا قام فرن إيه رجعت ويا إيه وحس مجران لكن رجعت وحيرة مجران رجعت محل ده يعني مال هو النار ما كنا غني ما كنا غنيس رجعت ذنوب إلا سلاء قلادو سيد مهرك إلا سلاء قلادو كلا إلا سلاء قلادو سيد كمان هذا إيه مركتان أمين هذا أنتينا من هذا كوكو عليه السؤال المركز دوت كويديني ما شرتيتان إلى لوتنا دي جودكن shaqada cadaadisku heeray gaadhay in axadaha lagu yiraahdo soo bax luutan hadayna waa sheegtay ana ka booday abay luutan aniga horta waxa marka hore u dago waxay ahayd guri blasto ku yaala markii anaga lugay isku toosay guri blasto ku yaala mortgage ku qaatay si aniga la iigu keeno hooyaday iyo caruur kale oo iga maqnaa labadii inaan soo dhalay inaan kale walaashay dhashay iyo hooyaday maadaama markaas maxay to aabay wuu dhintay aabay markuu dhintay hooyaday waxay maaragtay ay u joogtaa malaha ilmihii kalena ay dhoofeen marka haddii aanan laba qof oo wada shaqeynaya aad ahayn home office wuxuu kugu xujeynayaa xagee dadkan dajinaysaa marka waxay noqotay in aan maaragtay aniga gurigaas 3 bedroom blasto ka gato mortgage ku qaato ka bacdiina hooyo aabo hooyo caruurtu dacwada oo la ii keeno kadibna aan mortgage ka baxo because ma awoodi karaayo 7 caruur ah iyo hooyaday marka aan wax lacag aan qaadan dependent ugu ah mishaarkayga ma awoodi karaayo marka aan mortgage ka baxo marka saa u helo guri oo waafi ah oo nagu wada filan hooyaday qolay igu dukatay musqul gaaray wax kasta heli karto saa u hel ayaa aniga horta Luton ugu guuray marka Luton 32 kilometer ay u jirtaa Central London mile okay Lutonti marka ninkii qabay aniga markaan dhibaatadii maaragtay odagii markaan soo kala baxnay ka shaqada haray ka shaqada sida meesha uga socotaa anina ma rabin